qof kasto gobolkaas ka soo jeedo amba qof kasto saddexda yani saddexda ma aragtay gobol ka soo jeedo maamul goboleedka koonfur galbeed ku aftirsan way ka soo degi karaan amar la'aan ay ka soo degi karaan wayna imaan karaan taasna waxaan ku sheegayaa inaan berina aan ku soo gali doono diyaaradna aan ku soo gali doono gawaarina aan ku soo gali doono bismillaahi ama bacdu magacayga waa Muuse Maxamed Cabdullaahi waa siyaasi ka soo jeeda koonfur galbeed gaar ahaan gobolka Shabeellada Hoose halkan waxaan rabaa in aan hadal aan ka soo jeediyo hadal dhawaan ka soo yeeray siyaasiga Cali Saciid Fiqi kulle uu dhahay ma aragtay digil inuu u gafay odayaashiina u gafay shirkii oo Nairobi ka dhacay asagoo ma aragtay ugu jawaabayo siyaasiyiinta koonfur galbeed odayaashii asagoo u jawaabayo oo kalimaad ku jireen waxay ahayd inuu dhahay macnaha digil wax musharaxa kuma jiro digilna sanadkan Cabdicasiis ay wadataa odayaashana ku tilmaamay odayaal meesha kama jiraan odayaal awal bal soo dhoobay xaraan ku imaadeen waa yiri saas darteed Cali Saciid Fiqi digil iska dhaafay tunni hata ma matalo sababtoo ah qof oo ma aragtay markuu hadlayo hata hadalkiisa ka fiirsasho aan lahayn oo ma aragtay hadalkiisana ma aragtay ismaan dhaafayo saas darteed waxaan leenahay Cali Saciid Fiqi waxaan ku sheegayaa koonfur galbeed gobolka Shabeellada Hoose siyaasiyiin bay leedahay waxay leedahay musharaxiin bay leedahay waan musharaxan u nahay koonfur galbeed dhamaanteena inta digil ka soo jeeda Cali Saciid Fiqi inuu ugu gafay digil maxaan ku yiraahdaa arintaas ayaan ma aragtay aad aan ugu xumaanay inaan ma aragtay ugu jawaabno Cali Saciid Fiqi inuu macnaa u dhaha macnaa ma ahan in digil musharax ma ahan lafta gareenay wadataa digil kaligiis ma ahan kaligiis uu hadlay haduu dhihi lahaa anaga uma jawaabi lahayn macnaa kaligiis duu ka hadli lahaa oo dhihi lahaa ani musharax ma ihi lafta gareena waa macquul laakiin inuu dhaho macnaa digil oo dhan lafta gareenay wadataa lafta gareen waa nin ma aragtay koonfur galbeed xaaladeeda la ogyahay hadda ay taagan tahay waa nin hadda ku joogin ma aragtay sharci ama maandheed uusan ku joogin oo xaaladiisa ma aragtay eber tahay oo iska dhamaatay koonfur galbeedna aad u baahsada gaar ahaan Shabeellada Hoose inuu duleystay oo dadkii oo dhan ma aragtay abaar iyo gaajo ma aragtay la dhimaanayaan saas darteed kursiga dhiig uu ku imaaday haddana taas uu ku bixi doona lafda gareen tan kale xigta odayaasha inuu ku dhahay odayaal xaraan ku imaadeen waana ayidsanahay waana taageersanahay in odayaasha bedelo odayaal waa odayaasha sharaf leh weeyaan odayaal qiimo leh weeyaan salaadiinta gobolka Shabeellada Hoose ka soo jeedo waana la og yahay waana la yaqaana adigana hadaad tiraahdo siyaasiyiin yani ma aragtay odayaal xaraan ku imaadeen weeyaan odayaasha u gaftay waxaan laga rabaa hadalkaas in odayaasha aad ka siisid iyo siyaasiyiinta koonfur galbeed sidaas markaan ugu baxana gudoomiyaha degmada Baraawan asagana ma aragtay hadal oo asaga ma aragtay oo taagtiisana ahayn tabartiisana aan ahayn oo siyaasadan waxba ka ogeyn inuu meel la soo istaago oo dhaho cirka lagama soo deegi karo oo manifestada hala keeno ee qofku soo degayo qof kale meesha waxaan ku sheegayaa Baydhabo ma ahan meeshaas waxaan ku sheegayaa Xudurna ma ahan Baay Bakoolna ma ahan meeshaas Shabeellada Hoose waay gobolka Shabeellada Hoose weeyaan Baraawo weeyaan meeshaas qof kasto gobolkaas ka soo jeedo amba qof kasto saddexda yani saddexda ma aragtay gobol ka soo jeedo maamul goboleedka koonfur galbeed ku aftirsan way ka soo degi karaan amar la'aan ay ka soo degi karaan wayna imaan karaan taasna waxaan ku sheegayaa inaan berina aan ku soo gali doono diyaaradna aan ku soo gali doono gawaarina aan ku soo gali doono taasna waxaan ku sheegayaa hadalkaas aad baad ugu fududaatay li'annahu waxa tahay cunug yar oo ma aragtay oo siyaasadda ma aragtay aan la socon meesha u socotay meel kale marka waxaan ku sheegayaa hadalkaas aad baad ugu fududaatay Cumar Sheekh Cabdi aan hadlaya halkan ma aragtay gudoomiyaha degmada Baraawe hadda ma aha yani maamul sax ah kulli inkastoo aan ka jirin Baraawe oo gudoomiye ku meel gaar u yahay gudoomiye sax uusan ahayn asoo gudoomiye ku meel gaar leh yahay hadeer maamul saxna degmada Baraawe kama jiro Cabdicasiis wuxuu aamin la yahay degmooyinkii oo asaga golaha deegaanka u magacaabay oo ma aragtay golaha deegaanka loo dhisay golaha deegaanka xilamaana loo dhisay buu ma aragtay gudoomiyaal u magacaabanaya saas darteed cabsi ka qabo dartiisa marka Cabdicasiis doorasho uma socdo wuxuu ku imaaday dhiig wuxuuna ku bixi doonaa dhiig taasna waxaan u sheegayaa in aan doorashada ku qaban doono haduu Ilaahay yiraahdo Baraawe degmada Baraawe caasimada maamul goboleedka koonfur galbeed ee gobolka Shabeellada Hoose waana berina waan ku imaan doonaa mashriqi maqribin waan ugu imaan doonaa koonfur galbeed caasimadeedu waa Baraawana caasimada ma aragtay u ah koonfur gobolka Shabeellada Hoose waana koonfur galbeed waana lagu qaban doonaa haduu Ilaahay yiraahdo taasna cidna kala ma tashanayno inaan ka soo degi doono garoonka
maxaan ku yiraahdaa inaan ka soo degi doono xeebta aan ka soo degi doono duuma aan ku imaan doono in ma aragtay aan ku imaan doono gabaarin aan ku imaan doono idin sheegaya taasna koonfur galbeed Cali Said Fiqina ma maamulo lafta gareena ma maamulo meeshan waa meel xur u ah weeyaan meeshan waa meel cadow baahsatay oo maxaan ku yiraahdaa hareeraheeda oo dhan ku hareero weeyaan meel maamul sax aan ka jirana ma ahan saas darteed waxaan u sheegaynaa in maamul sax ah gobolka Shabeellada Hoose loo dhisi doono haduu Ilaahay yiraahdo ciidamo sax ah gobolka Shabeellada Hoose loo sameyn doono ayagana isku tashan doonaan cidna uma hoos fadhiisan doonto haduu Ilaahay yiraahdo aad baan idin salaamay arlaadin aad u mahadsantahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh